kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada taxanaha Hercai xalqadii 56 qaybtii labaad oo muuqaalka Part2 ileen saaka subaxdii markaan muuqaalka soo falanqeynayna xalqadani kala bar ayaan ku joojinay xalqada maadaama xalqadii ka koobneed 2 saacadood iyo 12 daqiiqo sida awgeed kala barkii labaad ama nuskii labaad isla xalqadaasi ayaan muuqaalkan ku falanqeynaynaa hadday waxaan ku joojinay markii Caziiza ila kulmaysay soo misana ii ku dhaheysay waynan ka hortagnaa cadowgeyna fusun waxay doonaysaa inay caruurteena wax gaarsiiso haddaba isla meeshan ka bilaabaynaa markaas muuqaalkaas kadib waxaana la tusayaa diilashaha oo guriga ku wareegayso sidee u socoto waxay arkaysaa qolkii Zahra oo furan Zahra qolkeedii markuu uu furan yahay ay aragto cunugtii Zahra ay dhashay oo markaas sariirtii ku dhex jirto oo oynayso ay kor u qaadaysaa kadibna Zahra oo iimaanayso oo caana cunugtii u doontay markaas ay dhehaysaa diilashaha iyadoo Zahra la hadlayso gabadhaada way oynaysay waana u dul qaadan waayay marka sidaasaan hooynimo ayaan ugu naxo kor ayaan u qaaday markaas Zahra waxay dhehaysaa wax dhiba ma lahan haddii aad doontid waad haysan kartaa Hazarsha dhulug ayaa meeshii soo istaagay laakiin isma tusay labadoodii wuu ka dhoomanaya sheekadoodu dhageysanaya markaas diilashaha waxay dhehaysaa markaas ku farxaysaa cunugtii ay habsiinaysaa Zahra ayaa xafiis ka dalbanaysa diilashaha waxay leedahay diilashaha igaraale noqo qalad ayaan ka galay hooyada oo nool ayaan ku dhahay way geeriyootay fadlan iska kii cafi diilashaha markay soo xasuusato waxay ay Zahra ku sameysay cunugteedii ku wareejinaysaa wayna soo baxaysaa kadibna Zahra way iska oynaysaa iyadoo murugaysan laakiin maseerkii diilashaha kama seeraysa marnaba kama baabi'in haddana way ka xun tahay qaladkii ay sameysay Hazar ayaa u soo galay Zahra markaas ayuu dejinayaa isagoo soo fariisanayay sariirta iyadana way iska oynaysaa waxaa muuqatay Hazarna inuu iska cafiyay Zahra sababtoo ah inuu qalbigeeda nadiif yahay sidoo kale tan ujeedadii ay u maseertay wax walba isaga dartiis inay tahay ayuu og yahay dhinaca kale waxaana la tusayaa haweeneydii fusun aslan bay ahayd gurigeedii joogtaa dadkii u tacsiyoonayeen markay ka kala tagaan waxa u soo laabanayay Jihaan ciyaar cusub ayuu ciyaaray wuxuu fusun tusayaa muuqaalkaasoo ah markii Haaroon oo geeriyooday meydkiisii meeshii uu yaalay waxaa dul joogay Maxamuud oo Caziiza aslan bay u shaqeeyo marka wuxuu leeyahay wiilkaada Haaroon isma dilini Caziiza aslan bay ayaa dishay sidaas ogow haddaba arrinkaasi muuqaal xusuus ayaana laga tusayaa Caziiza oo tukanayso iyadoo salaad tukanayso ayaa moobilkeedii laga xadayaa mid ka mid ah shaqaalaheeda ayaa khiyaanayo moobilkii markuu xaday kadib wuxuu wacayaa Maxamuud wuxuu leeyahay meel heblaayay tag ciwaankaas ayaan ku siinayaa waxba jiro kadib buu wacayaa ilaan telefoonkii Caziizo ka wacay kadibna Maxamuud wuxuu aadayaa goobtiina wuxuu ku arkayaa meydkii Haaroon muuqaal ayaa laga duubaya markuu meesha tago muuqaalkaas ayaa fusuun la tusayaa waxaana laga dhaadhacsiinayaa in Maxamuud uu dilay Haaroon ayna ku soo dalbatay Caziiza markaas ay fusuun wacad ku maraysaa inay Caziiza ka argoosanayso iyadana ay caruurteedii dilayso Hazarsha dhulug ama Miran midkood intaas kadib Caziiza aslanba iyadoo waxaanay dhan ma oga waana khiyaano loo sameeyay laakiinse dilka Haaroon in la dilay ayay dareysan tahay baaritaan ayayna ku sameynaysaa baaritaankii way ku guuleysanaysaa waayo telefoon ayaa loo soo diray waxa la leeyahay nin baan qabanay ninkiina arrinkii waan ka sheekisiinay Maxamuud ayaa soo wacay ninkii bay la kulmaysaa wuxuu dhahayaa Jihaan ayaa isoo dirsaday sidaasaan muuqaalka Maxamuud uga duubay markuu Haaroon meydkiisii dul taagnaay kadibna Caziiza waxay la kulmaysaa Jihaan waxay leedahay Haaroon dilkiisa aniga dush iga saartay Soomaa Jihaanow arrinkaasna fusun ayaad ka dhaadhacsiisay hadeer ii sheeg yaa dilay Haaroon ma adiga dishay markaasuu Jihaan dhahayaa Caziiz wad waalatay markani Haaroon wiilkayga kaloo ahaa gabadhayduu qabay sideen u dilayaa adigu wad waalatay wad isku dhaxayacday orod meesha isaga tag haddaba ninkii ay ku wareejinaysaa Jihaan waxay leedahay haddaba ninkii ku shaqeynaya waa kanay isagaa warkan inoo sheegay gurdhowna sirtaada way soo bixi doontaa Jihaanow inaad adigu Haaroon dishay ama ogtahay cidda dishay marka ninkii ku wareejinaysaa Caziizna way iska soo bixaysaa
markaas kadib Caziiza waxay la kulmaysaa si gaar ah Nasuh oo gaarigiisii ku jiro. waxay leedahay Nasuh i dhegeyso, Fusoon waxay iiga shakisan tahay inaan anigu dilay Haaroon, markana waxay iigu cagajuglaysay inay dili doonto markani Miran ama Hazar midkood. waana dareensanahay inay tallaabo ku dhaqaaqayso. waxaan kaa rabaa caruurteena inaad badbaadisid. Miran iyo Hazar la hadal, adigay hadalkaa maqlayaan, nafsadooda ka taxadiraan. sidoo kaleetana Caziiza ciidankeeday la hadlaysaa, waxay leedahay labada guri ee Miran iyo Hazar ay kala degan yihiin, waa in markaasi ciidan lagu hareereeya oo weerardiyo weyn laga qabtaa labadayda caruur, wiilkayga iyo wiilkuu dhalayba. dhinaca kaleeta Miran iyo Rayaan waqti wacan ayay wada qaadanayaan. waxay joogaan gurigii ay horey u deganaan jireen. halkaas ayagoo wada joogaan ayuu Miran Rayaan u sheegaya inay guri cusub u guurayaan. guriga cusub waana gurigii ahday xalqadii qaybtii koowaad aan sharaxayna uu sheega weeyey. waxay ku tashanayeen markaasi inay gurigooda cusub sharaxaad ku sameeyaan oo ay markaasi alaabaha kala dhigdhigtaan, waxay qaldan ay tutusiyaan, guriga ay camiraan, qolalka ay kala hagaajiyaan, alaab ay dhigtaan. sidii ayay yeelayaan. hooshii markay dhameeyaan kadib Miran iyo Rayaan horta waqti wacan ayay wada qaadanayaan iyagoo farakacayaar samayn doono. sidoo kaleetana wuxuu tusayaa qolalkii markii la sharxo ayuu Rayaan surprise ama lama filaan oga dhigayaa. indhuhu ka xirayaa, soo bax ayuu leeyahay, waxbaan ku tusayaa. wuu soo wadayaa qolkoodii jiifka ayuu keenayaa. qolkii jiifka waa gurigii cusbay. markuu qolkii tuso kadib indhuhu ka furaya. Rayaan markay aragto aad iyo aad ayay ugu farxaysaa, sababtoo ah qolka wuxuu u sharaxan yahay isla qaabkii uu u sharaxnaa gurigii doorka ku yaalay markay degnaayeen. waxay leedahay alaabihii xagga yaalo dhan inta ayaad keentay miya Mirano? aad iyo aad ayay ugu farxaysaa gurigan cusub sida Miran uu u sharaxay una qorxiyay. waxay leedahay riyadeeda waad ii rumaysay. waxay dhahaysaa markaasi iyo kaloona la degayo. wuxuu dhahayaa hooyadii dilshaah weyna la degaysaa, cunuga inoo dhalan doono gurigan isagaaba dhaxal ahaan u leh, waayo magaciisa iyo boor ahaan guriga dibadiisii ku dhejiyeen. waxayna ugu magac dareen gurigii Cumuud. Cumuud waa rajadoodii, wiilka rajada ah ee Rayaan caloosheeda ku jiro. wiilkaas inuu dhashta ay aad iyo aad ugu hamoon yihiin labadoodaba. markaasi guriga hortiisa isku sawirayaan sawiro selfie ah. Hazar shaadho lagu arkaya laakiin maqashaayad oo soo dhexgalayo wuu isaga tegayaa. dilishahana guriga kale ku jirta, dabaqa kore ayay ka dhex arkaysaa. ilaan labada guriga Miran oo cusub uu iibsaday iyo guriga reer shaadho lagu isku dhagan yihiin. labada guri waa laba qasri oo waaweyn. haddaba dilishaha qasrigii kale iyadoo ku dhex jirta ayay daaqada ka dhex arkaysaa Miran iyo Rayaan oo banaanka sawiro ku galayaan. wayna ku farxaysaa. Hazar isaga naftirkiisa wuu ku farxayaa, howlihiisii kale ayuuna sii qabsanayo, wuu iska baxayaa. markaasi Miran wuxuu Rayaan u sheegaya qolalka sida loo kala degayo. wuxuu dhahayaa ani adiga qaybta kore ayaan degaynaa, cunugeena hadduu inoo dhashtaan halkaasuu nala joogayaa. qaybta hoose iyo guriga ayay Shikraan qol ayaan u diyaariyey, oo ay dilshaah sidoo kaleeto qol ayaan u diyaariyey. sidoo kaleeto gabadha hooyadii dilshaah ay dhashay ama ay soo korsatay soo bixi doonto ee Asraa la dhaho, iyadana qolkii degi lahayd waan u diyaariyey. dhammaanteen intaan wada degaynaa, qoys buuxa ayaan wada noqonaynaa. qoyska aabihii iyo reer shaadhologna iyagana nagama fogo, way nagu dhagan yihiin. xilligan u baahana waan booqan karnaa. haddaba Miran qorshahan fiican ayuu sameeyey. Zahra way ku farxaysaa arrinkaasi, sababtoo waxay doonaysay dilshaah in gurigaas kale loo wareejiyo. Miranna arrinkaasi ayaa u fududiyey, Mirana u fududiyey. marka inkastoo xoogaa iyo maseer uu ku jiro, dushi saray ka arkaysaa farxadda caruurteeda ay wadaagayaan. Miran wuxuu ku guuleysanayaa ayadiis iyo hooyadiis inuu guriga usoo wareejiyo. aabihiis Hazar ayaana ku caawinaya arrinkaasi. ugu dambeyn waa la keenayaa gurigii. markii la keeno dilshaah iyadoo cabsi ay ka muuqato, waxaadna ma moodaa inaysan wiilkan Miran ah rabin ama wax jeceyl hooynama aysan u haynin. gurigii way soo galaysaa iyadoo la qasbayo. ay Shikraanna way la jirtaa, ay Shikraan way farxaysaa. Hazar shaadho lagu wuxuu dhahayaa wiilkaygii Miran wuuba ii iloobay aniga sidii hooyadiis usoo baxday. Miranna hooyadiisii ayuu gacanta wataa. markaasuu aabihiis usoo noqonayo, wuxuu dhahayaa aabba sidaas ma ahan. sidaasuu aabihiis hab ku siinayaa. ugu dambeyn Miran hooyadiis ayuu kor saarayaa, qolkii degi lahayd ayuu geynayaa oo qolkii qaybta hoose ama qaybta dhexe ku yaalay. markuu qolkii geeyey kadib, Rayaan ayaa dilshaah la joogto.
waqti wacan la qaadanayso halkaas ayadoo ay wada joogaan ayaa waxa dhacaysa Rayaan inay Dilshaah la hadasho waxa leedahay hooy Dilshaah guriga ka waran maama Dilshaah way iska shaban tahay waa shib qof aamusan way si fiican uma hadlayso sababtoo ah joogitaanka gurigan cusub kuma qanacsano markaas ay dhaysaa Rayaan hooy ma ogtahay Miran inuu qorsheenayo in gabadhaada Asra oo guriga keeno markaas ay hadal bilaabaysaa maanta dhan way aamusneed laakiin markii Asra lagu soo magac qaaday way hadlaysaa waxay leedahay gabadhayda Asra hadii la keenayo way fiican tahay riideedii oo dhan way ii rumoobaysaa markaasi gabadhayda aad baan u jeclahay markaasi Rayaan waxay dhahaysaa Miran aad iyo aad ayuu kugu xiiso hooyo hooynimo ayuuna ka rabaa waxay dhahaysaa duqdii marka Dilshaah ahayd aniga Miran aqoon fiican uma lihi markaasuu Miran albaabka soo istaagay sheekadoodu dhageysanaya Dilshaah waxay dhahaysaa Miran aqoon fiican uma lihi wuxuu jecel yahay iyo wuxuu neceb yahay dooqiisu wuxuu yahay ma kala garanayo laakiin si gabadhayda Asra waan jeclahay wax walba oo dooqeeda waan kala garanay sababtoo intaanu sano ayay ila nooleed kalarka midabka nooca ay jeceshahay cuntada nooca ay jeceshahay meelaha ay jeceshahay wax walba waan kala garanayaa waan u xiis gabadhayda markaas Rayaan usoo dhawaanaysa Dilshaah waxay leedahay hooy soo ma ogid Miran ba inuu koo xiisay Miran waa wiilkaada isagaba jecel hooynimo ayuu ka rabaa laakiin si Dilshaah magaca Miran ba ma soo hadal qaadayso gabadhii Asra ay ka sii sheekeynaysaa Miran arrinkaas uu ka qiiroonaya gudaha soo galaya sheekadoodu dhageysanay ileene markuu gudaha soo galo wuxuu dhahay hooy dhageyso waa ballan aan ka qaaday gabadhaada Asra inaan kuu keeno hayda ayaa farxadaada waan ogahay waan kuu keenaya degdeg waliba goordhow Istanbul ayay ka soo degaysaa markaas kadib Rayaan telefoonkeedii waa la soo wacayaa waxa soo wacayso Caziiza sababtoo ah Caziiza waxa soo wacday Fusuun Aslambi waxayna dhahday Caziizoy si fiican ii dhageyso anigu hadeer waxaan ku dhex jiraa murugada wiilkaygii iga geeriyooday ee Haroon ahay tacsidiisii laakiin waxaad ogaataa caawa guriga waxaa laga qabanayaa ducadaas guriga caawa laga qabanayo inta lagu guda jiro caruurtaada mid kamid ah waan dilayaa sababtoo waxaan go'aansaday inaan argoosigayga waxaan ka bilaabayaa Miran iyo Rayaan midkood gaar ahaan Miran iyo Hercai Xalqada marka labadooda midkood ayaan dilayaa iyo sidaas oo la soco kadibna Caziiza fadhi uma yeelo ilaa waxa loogu hanjabay in Miran ama Hercai midkood la dilayo ciidankeedii amartay waxay tiri guriyahaas wardiyaha laga qabto kadibna waxay inay wacdi isku dayaysaa Fusuun way Fusuun telefoonkii ay ku damisay gunul telefoonkeedii waxay waxay leedahay Fusuun igu dhiib laakiin Fusuun telefoonkii waxay dhaysaa gunul ay Fusuun guriga ma joogto waxay maxaa daran oo jira kadibna Caziiza way ka qarinaysaa gunul arrinka jirto Caziiza waxay doonaysaa inay Fusuun u sheegto in iyadaba ay leedahay cunug kale oo gabar kale ay dhashay haddii isku daydo Fusuun caruurta Caziizana inay tabato in Fusuun gabadheeda la dilay oo Caziiza dilayso Caziiza sidaas rabtay inay ugu hanjabto Fusuun laakiin telefoonkii waa laga qaban waayay haddaba Caziiza waxaa la kulmayso Asmaa waxay dhahaysaa Caziizoy maxaa tala ah Fusuun talaabo ayay qaadi kartaa waxbay samayn kartaa caruurteena halis bay ku jiraan xitaa furad inay disho waa macquul naagtan waxay ka naxayso malahan markaas Caziiza dejinaysa Asmaa waxay leedahay Asmaa isdeji waxaas waxba kama jiraan waxaad ogaataa qof walba adduunkan ku nool si kasta uu xun yahay si kasta uu adag yahay meel uu ka dabacsan yahay uu ka jeelcan yahay baa jirto Fusuunna hadeer waxay isku malaysaa in Haroon markuu ka geeriyooday kadib cidi aysan ka dambeynin qof ay u dirnaxayso oo hadii laga afduubanayo qofkaas oo hilkeedii kamid ahna inuusan jirin laakiin si gabar ay dhashay ayaa jirto waana qofka dunida ay ugu jeceshahay gabadhaas ayaan aniga ogahay meeshay joogto iyo aniga ayaana ka hayo marka Fusuun talaabo ma qaadi kartay leedahay ugu dambeyn Caziiza waxay wacaysaa Rayaan si ay markaasi Rayaan ugu sheegto hanjabaadda Fusuun laakiin Rayaan telefoonkeedii markay soo wacdo waxaa arkay Miran goobtana Dilshaah ayaa joogto Miran markuu arko telefoonkii ayuu Caziiza ka qabanaya oo canaananaya wuxuu leeyahay yaa awood ku sii inaad xaaskayga soo wacdid awood uma lihid xaaskayga inaad soo wacdid mana soo wici kartid wax aan ka dhageysanayna malahan na nabadgeli telefoonkii ayuu ku daminayaa
markaasuu rayaan qabsanaya wuxuu leeyahay sababtee Caziiza islan bay ii kuu soo wici kartaa. Rayaanna waxay dhehaysaa anigu maxaan ka garanaya sababta ii soo wacday. haddana Miran wuu isdejinaya waa nervosa ileene markaasay uu dhahaya iga raali noqo Rayaan neerfaha igu kaceen wax dhan waan iloobay. hooyadiisna uu raali gareynaya wuxuuna dhahaya hooy waan baxayaa wala shay asra ayaan soo wadaya waan kuu keenaya gabadhaadii. dilshahana aad iyo aad ayay u farxaysaa. Miran wuu soo baxayaa isagoo wacad ku maray inuu markaani asra keenayo. gaarigii ayuu shaqaalihiisii ka dalbaday laakiin gaari kale ayaa loo keenay. ninkii shaqaalaha ayuu amraya wuxuu leeyahay maxay tahay gaarigeen aan dalbaday moogay mid kalead ii keentay. markaasuu ninkii dhahaya iga raali noqo mudane gaarigaada waan kuu keenaya hadeer. kadibna Miran wuxuu dhahaya waan degdegsanahay iska dhaaf mid kale ayaan qaadanaya. markuu Miran baxa ninkii wuxuu wacayaa Fusuun wuxuu leeyahay marwo sidaad i dhahday ayaan sameeyey. Miranna wuu soo baxay. haddaba Miran shilqool ayaa loo dhigay. Fusuunna waxay doonaysaa in markaani Miran la dilo. haddaba Caziiza aslan bay wadadii kusoo jirtaa. haba soo baxday waxay u imaanaysaa gurigii cusbaa ee Miran iyo Rayaan ay degnaayeen. albaabkii soo istaagaysaa. Rayaan ayay la kulmaysaa albaabka markay garaacdo. dilshahana dabaqa kore ayay saarantaa way arkaysaa. dilshaha markay aragto Caziiza oo albaabka joogto Rayaanna la kulmayso. dilshaha waxay aad iyo aad uga caroonaysaa Rayaan waxayna ku qabsanaysaa ama uga carootay sababta ay Rayaan si dhoomaaleysay Caziiza ay ula kulmayso. waxayna waay sababtoo ah dilshaha mar walba waxay ka cabsataa Caziiza waxayna hadeer u fahantay ama u maleysaa in Rayaan iyo Caziiza ay heshiis yihiin loona heshiiyay iyada dilshaha qaabkii lagu qaban lahay. waxna ma oga dilshaha iyada qalbigeedii ay sidaas istusayo. intaas kadib Caziiza way ooynaysaa waxay leedahay Rayaan adiga i fahmi karo adiga i aamini karo. Miran halis ku jira Hazarna halis ayuu ku jiraa. markaas Rayaan waxay dhehaysaa bal wax ii sheeg wax dhameystiran ii sheeg. Miran hadduu baxay maxaa daran oo jiro. markaas Caziiza waxay dhehaysaa marka hore Miran baan soo badbaadinayaa anigaa wax walba kuu sheegayo. Caziiza goobtii ayay kasoo ordaysaa. gaarigii ayaa markaasi waxaa ku wada ninkii Maxamuud ahay. kadibna waxaa soo wacayso Fusuun waxay leedahay Caziizoy bal ii waran. Fusuun waxay leedahay Caziiza waxay dhehaysaa iyadoo Fusuun la hadlayso inaan kula kulmo ayaan rabaa Fusuun arrin muhiim ayaan kuu sheegi rabaa ha fududaanin. markaasay Fusuun leedahay waa hagaag waan kulmaynaa gaariga gadaashaada soo socdo ayaa kusoo hogaaminaya isaga soo raac goobta aan joogo gaarigaas ayaa ku keenayo. kadib gaarigii ayaa horkacaya gaarigii kale ee Caziiza ay wadatay. sidii ayaan Caziiza lagu soo wadayaa. Fusuun ayay la kulmaysaa. Fusuun markay la kulanto Caziiza waa la xirxirayaa waa la afduubayaa kursi ayaa la fariisinayaa. waxayna dhehaysaa markaas Caziiza markii afka laga xiro Fusuun ayaa hadlaysa iyadoo la hadlayso Caziiza waxay leedahay Caziizoy waa in badan ayaan fikiray markaad wiilkaygii Haruun dishay kadib qaabkii aan kaaga argoosan lahay waan ka fikiray. waxaan isdhahay Caziiza intay ka dabacsan tahay waan fikiray waxaan dhahay bal Nasuuh miyaad ka dishaa. markaasaan isdhahay Nasuuh hadeer wuu duqoobay. Caziizana iyo isagana hadeer wax xiriir oo aan ka ahayn inay caruurtoodii wada korsadaan ama ilaalsadaan mooye xiriir kaleed kama dhexeeyo. haddana waxaan isdhahay Caziiza hadeer adduunyada waxa u jooga waa Hazar shaadholog wiil ee dhashay isaga miyaad ka dishaa. haddana waxaan isdhahay Hazar waa nin weynaaday oo caruur sii dhalay. marka intaanoo sano ayay Caziiza wiilkeedii kala maqnaayeen hadeer ayay ishaleen ay qof Hazar kaga sii dirnaxaysa miyaa jiro. markaas qalbigayga waxaa kusoo dhacay Miran sababtoo ah Miran 30 sano ayaad soo koranaysay dhabtaadu kusoo koray. wiilkaada Hazar aad adigu dhashay waxaad hadeer kasii jeceshahay waa Miran. Miran ayaa agtaada qaali kasii ah. sidaa awgeed haddii aan Miran kaa dilo xanuunkii aad dareemi lahayd haddii aan Hazar kaa dilo mid ka weyn ayaad dareemaysaa haddii aan Miran kaa dilo. sida awgeed waxaan go'aansaday inaan Miran dilo. isla caawa Miran wuu geeriyoonayaa. Caziiza afkay ka xirantay gacmahana waa laga xirxiray kursiga fadhida. intaas kadib waxaana la tusayaa ninkii horta Rayaan ayaa gudaha soo galayso. dilshaha ayay isku dayaysaa inay la hadasho laakiinse dilshaha lama hadlayso. waxay leedahay hooyo kuuma ihi hooyo hay dhihin ani adigana wax hadal ah nagama dhexeeyo. dilshahana albaabkii hoosta ka xiranaysaa. ayay Shikran oo meeshii joogto way yaaban tahay. waxay leedahay maxaa dhacayo halkan maxaa ka dhacayo. kadibna Rayaan waxay dhehaysaa ayay hooyo dilshaha waxay aragtay Caziizo ila kulmayso marka sidaasay iiga carootay sababtoo Caziizay ka cabsataa iyada. si kastay ahaataba
ayay shikran waxay leedahay maxay Caziiza adiga kula kulantay rayaanna waxay leedahay ma garanayo intaas kadib waxaana la tusayaa gabadhii yariin ahayd iyadoo dhan way isku dardarsoontay sida qof waalan oo kaleeta ayay noqotay hadalkii Haaruun ayay mar walba maqlaysaa Haaruun inuu horteeda taagan yahay oo kaleeta ayuu u dhaqmaysaa Haaruun ayaa su'aal weydiinaya wuxuu dhahayaa maxay tahay sawtad ii dishay yariinay iyadana waxay dhahaysaa ma garanayo sawtan kuu dilay handaan ayaa agteeda joogto hooydeeda markaasay leedahay gabadhidii yaa la hadlaysa isdeji yariin dhagay qabsanaysaa codkii Haaruun ayay mar walba maqlaysaa hal su'aal ayuuna weydiinayaa mar walba su'aashaas oo ah maxaad ii dishay yariinay iyadana waxay dhahaysaa ma garanayo sawtan kuu dilay hadaba gabadhii yariin ahayd noocaas ayay noqotay oo xaalkeedii aad iyo aad ayuu u daran yahay waxaana macquul ah inay waalato oo ay ku dhufato dhinaca kaleeto Nasuu isaguna wuxuu ku dadaalayay qaabkii uu ku badbaadin lahay caruurtiisa ugu dambeyn Miran wuxuu la kulmayaa gabadhii Asra ahayd ee laboorku tagay gabadhii ayuu soo dhaweeyay Istanbul ka timid waxay dhahaysaa adiga Miran miyaa tahay haa ayuu dhahayaa ee adiga Asra miyaa tahay haa gaarigii ayuu soo saarayaa way soo socdaan Miran waxaa la doonayay in shil baawar la galiyo gabadhii waxay dhahaysaa aniga ma aaminsani inaad adiga Miran tahay intaanoo sano ayaad naga maqneed waxaan ku umaleynayay inaad dhimatay hooy dilshaa xanuun badan ayay martay adiga dartaada muddo sanad walba iyo maalin walba daqiiqad walba adiga ka fikiraysay inkastoo aniga aan la joogay waqti wacan la soo qaatay markaas ayuu Miran dhahayaa dhamaanteen aniga xitaa dhibkan waa soo maray marka dhamaanteen waa dhib badanna dhib ayaan soo marnay laakiin waxay hadda ka dambeeyo nolol fiican ayay inoo bilaabanayso hooydii intaanoo sano ayay qolku xirtay naagtee way ayay dhahaysaa markaasay dhahayaa Caziiza aslambi markaasay gabadha waxay dhahaysaa macquul ma ahan ma iida Caziiza ayaa waxa sameyn karto markaasuu Miran yaabaya wuxuu dhahayaa gabadhan sidee sidan oo dhan ay ugu sharfi kartaa Caziizo oo iida Caziiza ay u leedahay markaasuu dhahayaa hooyada ayaan ku geenayaa gurigan ku dhownahay ee isdeji way soo socdaan intaas kadib Rayaan qolkeedii ayay galaysaa iyadoo yaaban kadibna waxaa la soo wacayaa horta Caziiza aslambi ayaa afka laga furayaa waxay dhahaysaa fasuun hay Caziiza hadal Caziiza waxay dhahaysaa haddii aad isku daydid inaad Mirankayga far saartid waxaad ogaataa gabadhaada ayaan dilayaa fasuunay fasuun way yaabaysaa waxay leedahay ma aniga gabar dhalay Caziizana waxay dhahaysaa gabar ayaad dhashay gabadhaadii ma dhimanin ogow intaanoo sano aniga hayay oo korinayay meeshii joogtana aniga og gabadhaada way nooshahay haddaba gabadhaas anaga waxaan ku qayaysan inay tahay gabadha haddii Miran la socota ee Asra la dhaho markaasay dhahaysaa fasuun way yaabaysaa Caziiza waxay dhahaysaa haddaba haddaadan idiinin oo markaasi fasaxin waxaad ogaataa gabadhaada way dhimanaysaa gabadhaadan kugu soo wareejinayaa adigana Miran ayaad igu soo wareejinaysaa oo badbaadinaysaa fasuun waxay ku dadaalaysaa inay Miran badbaadiso darawalkii ay teleefankiisii wacaysaa laakiin darawalkii teleefankii ma qabanayo haddaba fasuun horeyna waa loogu hanjabay waxaa u hanjabay maxfuus markii qabrigii Haaruun la dul joogay oo Haaruun la doogay wuxuu dhahay caruurtayda iskuma taabin kartid fasuunay iyadana waxay dhahday dagaal hadduu bilowday maxfuus waxaad ogtahay malaanay tiray intaas kadib Miran shilkii ayuu galayaa Rayaan waa la soo wacayaa waxa soo wacaysa Caziiza waxayna dhahaysaa Miran halis ayuu ku jira shil baawar ayuu galay rabaa soo orod kadibna Rayaan way soo bixisaa aabeed Hazar ayaa soo wadaayo sidii u soo socdaan Caziizana way soo socotaa Miran shilkii ayuu galay gaari weyn ayaa la hordhigayaa waana qorshihii fasuun ayuu u diyaarisay inkastoo fasuun markii dambe ay rabtay inay qorshahan ka laabato ugu dambeyn Miran shilkii ayuu galay dhaawac ayaa soo gaaraya gabadhii ayaa gaarigii ka soo bixinaysa Rayaan iyo Hazar meesha imaanayaan Miran ayay qabanayaan Rayaan Miran ayay ku waalanaysaa Caziizana way soo socotaa wadadii ku soo jirtaa ugu dambeyn Rayaan waxay arkaysaa marag gaduudan oo gacanta uga xiran gabadhii Miran markaasay soo xasuusanaysaa riyadii waxayna istusaysaa in gabadhan ay soo dhex gashay nolosha iyada Rayaan ah iyo Miran iyo Rayaan jacaylkooda gabadhan inay soo dhex galayso ama dilishaah ay burburin doonto jacaylka Miran iyo Rayaan ayay u muuqataa waayo Rayaan riyadii ayay soo xasuusatay isla maradii ayayna aragtay qofkii wiifowga ka badbaadinayay markii wiifowga ka dhici rabtay xalqada bilowgeeda intaas ayaan kusoo gabagabaynayna sharaxaada maadaama xalqada ay halkaas ku dhammaanayso Miran oo suuxsan indhahana isku haya inuu dhintay inuu noolan doono la kala ogin iyo waliba Hazar Rayaan iyo gabadhiina ay dul joogaan gaarigiina shil ayuu galay intaas aan kusoo gabagabaynayna billahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh